waxaad arkaysaan abaartu inay abaar baahsan noqotay ummadoo dhan gaadhay degmada Jiriibana ay malkaha dhigatay si adag oo 3 nuur aan la helin bay ugu fariisatay sidaa daraadeed degmadu waa isxilqaantay waxay ku tashatay inay badbaadiso wixii ma Ilaah baa badbaadin kara wixii markaa nafta ay isleeyihiin waa ka dhacaysa si korsa inay u sameeyaan ama wax la yiraahdo emergency oo ay ka gaaraan annagu intaas awoodayadu tahay Ilaahay baa awood iskale waxaan codsanaynaa dawladda Puntland dawladda federaalka hay'adaha qurba joogta intii xilqabto aan direynaa baaq islaamnimo oo helnimo baan direynaa meesha Jiriiman yiraahdo aad baa maarta xaaladdu u adag tahay degmada Jiriiman ka soo hadlaynaa abaar baan baa jidha annagu waa intaan qaban karno waan qaban waa dadaalnay wa tacaawun cala birri wa taqwa wa la tacaawun cala ithmi ilaahi leeyahay isku kaalmeeya wanaag isku kaalmeeya laakiin xumaanta isku kaalmeynina wuxuu yiri rasuulka kaleey salaatu salaam man la yarham qof aan naxariisan looma naxariisto marka walaalayaal sida waliin sheegay Nabadoon Muuse iyo rag ka dambeeyay xaalad adag ayaa jirta aad iyo aad baan loo culus yahay waxaan leenahay marka baaqa aan dirayno waxay tahay dawladda Puntland waxa la sugahayo Ilaahay baan sugaynaa deeqis laakiin dawladda Puntland waa dawladii dalkan iyo dadkan madaxda ka ahayd waa dawladii mas'uuliyadda ka ahayd dadka maatada ah ilmaha caana booraha waayay iyo sheebka wax lagu habala waayay iyo xoolaha caqanahayo geedaha hoosooda ku baqtinahaya dawladda yaday sugaysaa waxaan leeyahay dawladda Puntland oo aan member ka mid ahay waxaan leeyahay wasiirada madaxweynaha ku-xigeenada xildhibaanada waxaan leeyahay loo istaago waxaan rabnaa in halka baaq ka dirno dawladda Puntland dawladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed jaaliyadaha hay'adaha doonariska dhammaan waxaan leenahay ha loo istaago maanta sida loo caawin lahaa dadka ummadda Soomaaliyeed loo caawin lahaa ama ummadda islaamka khaasaan anagu waxaan ka hadlaynaa degmada Jiriiban anagoo og inay nala mid yihiin degmooyinka kale meel walba ummadda Soomaaliyeed isku mid tahay waxaan rabnaa in loo gurmado ummadda Soomaaliyeed jilaalkii laba weeye mid waa mid caam ah oo baahsan oo meel walba yaala oo loo sinan yahay midna waxa weeye meel kaasna ummadda la qabta ayna ka dhacday biyo la'aan way ugu badan yihiin wadanka hawdka ah iyo aduunka area-da halka naga jirta ah oo aan riiga lahayn awal ceel gacmeed lahayn ummadaasi degmada Jiriiban marka 3 meelood laga dhigo wax kamida ayaa ceel loo wadaagsan ku taxan inta kale waxa laga caba baragaas bihooda way dhamaadeen ummadii wadanku noolana way ku nooshahay waxay u baahan yihiin laba dhanba in laga caawiyo dhanka biyaha iyo dhanka quudinta labada cuntada ognahay hadda hay'adihii maanta garow ay ku shirayaan iyo wasaaradda qorsheynta shirka ay u qabanayso haddii hadda emergency hadda lagu dhawaaqo ay hawsha waxaan ognahay process bay qaadanaysaa iyo iyaamo Jiriiban process iyo u baahnaa hay'adaha qaybaan la hadalay dawladana qaybaan kala hadalay waxaan leenahay emergency biyo dhaabin ah bay u baahan tahay oo xataa hay'aduhu ay hadhow marka hawsha ay galayaan ay reimbursement ku sameeyaan oo dib u celiyaan inta ay qabtaan laakiin Jiriiban waxay u baahan tahay emergency biyo ah waxaan rabaa inaan inta ku daro wakaaladda biyaha ceelka la yiraahdo Balambal oo xoolo badan dul looban yihiin ceelkaas shalay wuu jabay